ardayda jaamacadaha ka baxda Soomaaliya arag markay qalin jabinayaan oo jaamacad ay dhameeyaan dufcadan oo dhan meel waxay tagayaan sawirradooda dhan ay ku dhajinayaan dufcadan ayaa qalin jabinaysa xafladii qalin jabinta markaas xaflad ayaa la dhigayaa markaas Ilaahay waan qalin jabinay jaamacadii aan dhameynay waad mahadsantii khayr Allah idin siiyo jaamacadaas kuwaas dhameeyay tirada badan ee meesha ku dhagan kuwa aan ka yarayn baan maalin walba intaan isku soo dhajino baan kor waxaan uga qoraynaa تعسي الله ونحريص كون ويقلن جبين مرك إلى أنت وضعنا مرك ويقلن جبين ويوضعن تعسي مرك اللي سوى رسول واحد حقيقي ما ذانا ما اللي سويدينا ما لنا ور إنتان حال أرادينا عد سويديني سماله باش عالم كحل إلى هذا مشكلة ويفيرنايان ماشي أقول حنا كي مريس أي دبك يسكر راعنايان كنا ويتجايان هاي كان ويلا شرايان كنا ويلا شرايان واسدي وحين قدجن هنا وحال هوان انتو قبيب وحسوا خلافين تلو يوجع لي إسلامه مركز سعودي وني خطر وحوري أنت تيجي ستان مدي عند بركة كتاب تعيان جعله مركز يسيجي ستين مركز سوق أنت هذي بدأ بركة كتابت مدول بس يسيد يسيب أنو يجع لي marka dhabar kistaabashay inta la iska daayo quraanka inoo sheego gaaladina ma jecelo inagu badaba ordayna ma ogiye ilaahay wuxuu yiraahdaa antum ulaa'i wardad yahu idinkan ha antum ulaa'i idinkum ba tuhibbunahum ja'al wala yuhibbunakum laakin ayagu idin ma jecelo kuwa badaan oo inay rabin ayaa kamid ah kuwa soo baxay waxa kamid ah Barack Obama ما يقدر يبي وحكوا صباح عليه جيت كي لما يجري له مرة بس تك سولا كرسي أسوق فديل الأرك ما ده هاي إن كان مذو وياه عدان ما هي أنا لقدينا ما جرتوا هل هدينا لقديو أو سيل سكوك على قل لحظة هذا ما لقى سوق بتلميه لايو وقت يسحنا ما يستكل لحظة وقت يسوق ما يست دور شوين كان على قل برلمان كونغرس سيل لو ذي إلهان عمر صباح ذي وصومالي مرة كان كأذي واكن إلهان عمر وحيس هيس ترى مركا gabadheen haday taraan la dagaalayso horta bal meesha aan joogno ogaadab gabar Soomaaliyeed iyo Trump ayaa facsiman oo way la dagaalaysaa asna warkiisu sheegtaa aydan warkeeda sheegataa marka dambana ardayda kala celiyo maal dhihi doona intii meesha ku dhimatay Allah u wada naxariisto kii dilay iyo kii dhintay kulli Allah u wada naxariisto inta noolna الله وضنا كل جيم مرك الله وضنا حريستنا مرك حل أيه نجرب تاعي حل كنا إسلامكو كجراية إسلام كان الدين تنتان آمنه مكرجة يشرق الله لينهم مليجا لينو سمينا أيو دنتين إنه كجرين قالوا سمينا يعني سلام كبحنا عن ديارك الله هنا سين للوهايو سيد الله قبل حلا هدينا ضدك عنوني ورسين كيلنا لقيت شنين سام بالجراية من خير الذي سيو بريا وحاجة لالي بريا أو جات كل جوجين جري بريا جات كل جوجيو اللي قف كل واحد كده برجوين تقاعد كل جري والله ممنوع بريا لا وريجا ليرو وأدوك سوينتين دتك واش ويا قانا جات كسول ما جوجين دتك ما راح على جات كجوجين تيسا صار دتك بدوينها كل عقابايا أيوة يقيران ولو كينا سوى لو كينا قلبتي يهبين كي أفريسان عيان ويقيران جات كل ولا جوجيات بريا اللي يقولوا وريجا وحلا جات على الوقت أضيق الصورة وقت حلياس يا كوا جاد لو سوق قبطان لو كان وديوان جلي انت اهايان انت جاد لو سوق قبط وحالي marka faylko hala soo cadeeyo baaritaan lagu soo sameeyo hal soo celiyo markale markii kale inta la gaar xabsi markii lagu celiyay intii dawladda show kuwa ka agdhow isku reerka ahaayeen hoosta laga sii daayay intii kale baadana lagu soo celiyay maxkamadii garsoore markuu yeeray hebel aaway ma joogo kuwii askartu weydiiyay wuxuu dadkii kale aaway أنا قدامي وانسوق هذين أين ينتهي دهن أي بحثين مساسها أفهمين تقول هذا الشيخ أنا قارنه والله نحرزه ودنتهي أنت محابيستك كلا المشي في الدنيا أي على سيدين يا وران توقع يسين بها كاديا إذا كنت بحثوك هذا هذه أنت لسوق هذا لسه بحثنا يوم ما عندك ماشي كويس أنا كاديد ما يسميك أرض إذا كنت لسوق هذه يعني دين الإسلام كإسلام كأهل وحي إلهي وحارنتني ما يقول له جيدو
hadduu uusan markaa asaga markaas u muuqato adduunyo una uga jeedin wuxuu leeyahay inoo wada hawsha war ilaahay ma ogole ka joog mida waxaa la yidhi wuxuu yidhi 4 naagood ka badan aan guursanaa dadkeena way dhammaadeen dagaalla lagu dhammaaday si aan intii dhintay u soo gudo waa inaan 20 iyo 30 iyo meelahaas guursado waxaa la kitaabka ilaahay ma ogola 4 ka badan markaas uu iga leexo kitaab ilaahay dantay moog kitaab ilaahay ma dantay koog dantay ana aqaana ma kitaab dantay يعني marka arintu ay noqoto dantayda anun ba aqaana taasi wax sax ma aha danta ilaahay ba yaqaan ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ilaahay wixii aan sameyn jiray carafan soo istaagay adna waad ii ogtahay anna waan is ogahay wixii xumaa aan sameynayay halkan aan ku ga toobad keenay oon dhigay ilaahay marxaati ka ahow wixii dadku ay ugu lahaayeen waan u celinayaa iafiyana waan dhahayaa dib dambana u geysan maayo kacbadaada agteedana ballan ku galay masaama soo dhaaya ma dharca intuu ku gasto halka uu ku joogo wuxuu leeyahay duro Facebook kala socda markii wax laga sheegay aan idin soo noqdo xaquba ka soo dhaaranaya وما نقول صار نقول نقربته سو هذيك توبت كان ما هي يعني كسو قبيسي ما دنبية waxay u ka dhigeen soo hadda midna ajal marka dhageysanayso hawl yar inaad qabsato aad rabtid soo macala bows soo lama taabto dambigu bows u yar istaagsi bas bows loo dhaay bas inta maalma xaj kala joogo bows u yahay markuu ka soo laabtana meesha uu ku dhufay bowski uu ka qaadaya halkii uu ka sii wadaya idan xajki muxuu taray al hajj al mabrur ma kaas marka ko mukhayad soo galay waxa la yiri sokor iyo waxbu qabay wuxuu yiri sokorta kabariyay wuxuu yiri sokorta haygaga soo darin waan iska mashquulsan oo ahaaye sokortii uu ku soo daray shaayina korku uga soo daray uu soo hordhigay markuu soo fiiriyay nus wax ku dhow sokor waa markaas sokor uu qabay dhiikarkii ku kacay qaylo wiilkii yaraa ku qaylo wariyaas oo kuma dhihin sokor haygaga soo daray maxaa sokor ku soo dartay wiilkii kaba baa wuxuu yiri adeer ha ku qasinno korle kacbis marka waxaan ka wada kii mucaarado waxba dilaynin oo la dawladda halkaas ay ku khaldan tahay Soomaa wixii ay ku khaldan tahay la sheegay ha ku qasinno adi meeshii la iska toosi laakiin waxa dib u heshiisiin u baahan dadka isdilaya hadda koora qisay waxa leenaha meel uu sheekh ka aha marka sheekhani waa ragad maahine cilmiga ma yaqaano dadku iska waabsada marka laakiin mid uu imaaday maalinka dambe marti oo sheekho laakiin wax yaqaana wuxuu dadka ku wacdinaya oo leeyahay qaala ta'ala ilaahi wuxuu fankihu ma daaba lakum min an-nisaa fankihu tukada ma daaba lakum min an-nisaa mathna laba tukada oo waxa laga wadaa salaada subax iyo warubaaca iyo wathulaatha wathulaatha warubaaca thulaathana waa maghribka warubaacana waa inta kale marka fankihu tukada sheekhu uu yaabay wuxuu yiri intuu la hadlo adeer ilaahay baan kugu dhaarshay ma fankihu baa tukada wuxuu yiri oo maxay tahay deeynayeen fankihu tukada maxaa lagu fasiri karaa markaas uu gartay marka meesha in la soo galay bas inuu meesha cishtan uu rabo odaygu oo fankihu tukada la isii ahaato wuxuu yiri dadkii intuu la hadlo dhageysta ninkaas bari subax ayaan masaajidka isugu imaanaynaa waana doodaynaa qofkii cilmi la idinkaana kala saaraysiin dad dadweyneetiin saddex su'aalood baan weydiinayaa hadduu saddexda aan ka helo oo uu yiraahdo hadduu ku jawaabo inuusan waxba aqoonin oo mid dhaalim ah oo aniga i gardarhaysana inuu yahay saa uu ogaada waayahay bas meesha la sugu imaaday wadaadkina uu imaaday haye sheekhi haddii ay ugu haysay fankihu tukada aaway waa anigu ana kugu haysay fankihu tukada ma ah markaas uu yiri su'aalan ku weydiinaya markaas uu weydii ilaahay soo ma dhihin qul huwallahu ahad markaas uu yiri ha Allahu samad soo ilaahay ma dhihin ha lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad soo ilaahay ma dhihin ha maxay tahay arbaax u dhaha ku dhuftay wal isku booday marka ninka saddex mar ha ma kaga sii horta ha muxuu rabaa marka meeshu rabaa inuu qaso way isla qasantay marka dadkii waxay dhahay marka culimada kala qabta hadda kismaayo waxa ka socda waxa waay culimada kala qabta inay inoo taala marka saa culimada ku kala qaban lahayn baadiyaha moogtahay sida magaalada kale ma kala laha
qolal oo ay kala seexseexdaan waalidka iyo caruurta iyo male aqal Soomaaliga la wada seexdaan kuwa ku kuusana marka aqal Soomaali dhinac ka seexda reebaadu say wax ku dhal ayaga yaqaan marka saas ay taani waxan baa la dhalaa mar ay seexdeen ilmuhu haday doonaan markaas kadib laga dhigto dib loo dhigto habeena marka ilmihii mid ka mid ah oo inuu seexday loo maleeyay malaha buuna seexanin uu soo jeeday waxbuu arkay markaas subaxdii yuu ku yar uga sheekay wuxuu yiri waxbaan ku tusi caawa seexanin haye istaan baa la galay ilmihii istaan bay ugu jireen xilligii dambe ee xaaladu ay ahayd ayaa la gaaray kii wax ballamiyay ee hore yaa wuxuu damcay inuu kii toosiyo oo yiraahdo hawsha hadday bilaabanaysa markuu damcay inuu toosiyo ayaa wuxuu yiri waryaa waan soo jeedaa indha farahay gelin indha farahay gelin niyowan hadda Soomaali xaaladda ay joogto waxay tahay waa la soo wada jeedaa kuwa waxay marka dadka indha farahay geliyaan waa la iswada fahmay waxa la isku haysto waa kursigaasi seen uga heshiina intii la yiraahdo taas inagoo heshiisay dan inoo wada tahay saas ma lagu qaybsadaa ilaa laga gaaro ma soconayso